الحمد لله استاذ رسول الله بعد مدح قرار مريكا مدح soo xukumay waxay ahaayeen madax waaweyn oo taariikhda galay Jefferson iyo George Washington iyo حتى Reagan iyo Jimmy Carter rag waxay taariikhda galay waxyaalada yaabka ay ku lahaayeen wuxuu ahaa qof marka uu madaxweyne noqonayo waa la diyaarin jiray ragga markay madax noqonayaan waa la diyaarin jiray waxaana loo diyaarinayay dhowr meelood baa laga diyaariyaa meesha koowaad waxaa laga diyaariyaa dhanka waxa loo yaqaano protocolka siduu dadka ula hadli siduu u fadhiisani madaxdu say ula fadhiisanayaan siduu u soo dhaweyn madaxweynayaasha siduu u salaami waa protocol waana waxyaalada ugu khatarsan qofka lagu qiimeeyo weeyaan midda labaad waxaa laga diyaarin jiray logistiga uu ku hadlayo luqadda iyo siduu u hadli doono hadallada inuu iska dhowra ah iyo hadallada inuu ku hadla ay tahay waa laga diyaariyaa mid saddexaad baa laga diyaariyaa waxaa loo diyaariyaa siyaasaadka markuu qaadanayo decisionada iyuu la qaadan iyuuna la qaadanayn marka maraykanka guud ahaan maraykanka waxaa ku dhacay afgembi dhinaca siyaasadda kacdo baa dhacay kooxdan uu wato ninka la dhahdo Trump waa koox aan rumaysnayn waxa loo yaqaana systematic nidaamka barbayso walidaalika dadka uu wato oo dhan dad soo maray dowladnimo ma waa dad dowladda ka soo raacay tareenka ku soo buuday daaqaday ka soo galeen hadda wasiirka difaacu waa Oriyo wuxuuna xukumaa Pentagonki wasaaradda ugu adag ee dalka wasaaradda arrimaha dibadda xitaa ka joogay kulligoo isku wadagay kooxda oo dhani ma ahan koox nidaam sameeyay okay madaxweynaha marka Trump wuxuu yahay marka isweydiino anigu waxay dhacdaa waa afar qof oo qof ku dhex jira ya waa afar nin qof ku dhex jira number 1 waa ninkii iibin jiray guryaha taajir العقارات dowladaha waxaa haystaa inay yihiin wax la iibiyo markuu la sheekaysana madaxda carabta wuxuu soo qaadanayaa waraaqad lambara leh wuxuu leeyahay waxa laga baahan yahay 300 milyan waxa laga baahan yahay 500 saasoo la sheekaysanaya waxaasi berigii hore waxaa lagu soo dhameeyaa miiska hoostiisa korka lama keeno imika isaga wixii hoos ugu dhameynay kor u keenay dowladii marka waxa loo fahmayay yihiin baba dowladda wax kala gadanaya midda koobidaas midda labaad ee uu yahay waxa ninka wariyo ahaa wali waxa wariya baqbaqla show dowladii wuxuu ku wada si show marka Trump oo baa mushtara Trump oo showya atila Soomaa midda saddexaad ninkani Trump la dhahday arrin saddexaad oo muhiim u lahaa wuxuu leeyahay waligii ma aamino in laga guuleysto waxa ku jira hysteria معناها وتضخم انا وين بوطا او عجيبه ودريمس هذا قابك حتى ولياش ولا حد يولي وددك ولا hadlay binaadka wala hadlay suulaha madaxweynaha Ukraine si boqorkii Urdun soo wala hadlay okay taasina waa saddexaad u leeyahay arrin afraad buu leeyahay arrinta afraad ee uu leeyahay wax weeyaan wuxuu yiri maaha America first mahad America awalan أمريكا أولاً بقول سماها ما تعصي وترامب أولاً فريستي وترامب يعني صح قرأت ما أفر تاقف أنت اللي سكوجي يا غفل غني بالقف كهذه هستيريا ولا رسنة أنتم كنا بينو سووا حكوا وايست يدك بني هذا كسر قاضي وحبة هين ذلك غزة وحكون دمين دونا إشقورات ما كان دميرها بقالة رب وانقادم دونا وقريا قديش دونا ودول دلي يوكرانيا ودمين دونا أريتها ودمين ما نتوح سكاني كونغو إيو سكاني رواندا حمص يعني حمص مدعوينها وإلى دوكا يا والله أفريكانو وحيانا قطر صار بس ما عاو دونا يا أنا أساس ترى يعني سيرت عليه ترى ونين وجه بدن ونين القفا خالد أنا وحان لهلا نيك ترامب برتوا من سوق هبلايو يسوق نقمايو وأنا رغم إنه مطلوب مدحتوي كينج
boqortooyo rabo inuu noqdo taas waxay ku tusinaysaa qaabku u dhaqmaayo dadku soo dhaweynayo ummaddu soo dhaweynayo waa nin jeclaan lahay waddanka Mareykanka inuu noqdo waddan lagu xukumo sida maxaa lahay authoritarian kaligiis rabo inuu taliyo taas waa wax hadda aan isleeyahay ninkan hadda kusoo kordhay markii 2016kii markuu qaaday madaxweynaha Mareykanka markuu noqday si fiican 4 sano uu gacanta ku hayay maxaa la dhahay doonay muurabi ma meel fiican way ka gaareen cajiib markaas uu soo noqday hadda markuu madaxweynaha soo noqday wuxuu doonay hadda inuu sidii maadaama uu fahmay sida dawladda u shaqeynayso Mareykanka afgabisu waa inuu kusoo sida way tahay sani taas ku dar la waa nin rabo inuu noqdo waxa yaab la sheekh Mawlido Khalid wuxuu sheegay arrin muhiim ah wuxuu tagay wadannada Carabta wuxuu arkay guryaha si u dhisan yihiin waaweyn aqalkii uu dumiyay dibbu soo qaaday aqalkii caddaa uu dumiyay maxaa dhisay walaal waxaan dhisay aqal weyn ma dhisay sabab kale deeray oo u qalanta Mareykanka ku leeyahay aniga mar waxaan garanayaa madaxweynihii Clinton Miss Obama iyo islaantii Clinton u sameeyay qado wuxuu ugu sameeyay geed ku yaala aqalka cad hoostiisa miisiro inta hor yaal marti ayuu soo dhigay waxa la soo dhigay 3 saxni oo yar yar balqaacada yar halka bisla fadhi markuu magacaabi doono yaan oo wasiirka arrimaha dibadda ka dhigayo islaantii noqonaysa arrimaha dibadda iyo madaxweynaha halkaas ka fadhiyaan Mareykanku waxay aaminsan yihiin Mareykanku uu weyn yahay maxaa weyn dawladda weyn qofka Mareykanka weyn xadaaradda Mareykanka weyn isagoo taama aaminsan ana weyn marka gurigiiba uu bedelo wuxuu ku leeyahay si loo dhisay 200 sano koor buu yahay waa in la bedelo maxaa soo arkay guriyaha boqorada inuu boqor noqdo doona markaas amay waa ka muuqataa dhaqamadiisa waa tababar siyaasadeed iyo protocol midna male ninka noocaasa authoritarianka ah 4 qof isku jira muxuu Soomaalida muxuu Soomaalida kuma waa qof keesa laba 4 qof kee way mid ka dhisayna والله سؤال عجيب هرت أنا وحيلتها هي الصومالي وقف يابلي قف الصومالي وحوليه هي لبا صفة أو يابلي صفة وحين حريضة قف الصومالي وقف حريضة جحل إن لقوا بيستونا قف الصومالي هو ديناميك قف أنتم مال فريستو سوق معها وحاو إيمانيا meeshani dad badan oo inaga soo horiyaa jiro Caraba Muslimiina Afrikaana madow si u sugayeen umar dhintaan Soomaaliga labada amale okay Soomaaligu marka uu Soomaaliya joogay labadaasi way dhibayeen لأن dawladii haysatay dawladu ogoleed ma xorriyada dinamikada kama faa'iideysanayeen markay Mareykanka yimaadeen waxay heleen wadankii xorriyada iyo dinamikiyada qofku wuxuu rabo inuu noqdo qofka Soomaaliga wuxuu rabay iyo helay muxuu noqday marka qofka Soomaaliga qofkii ugu horeeyay Mareykanka yimid ka masa 200 sano ka hor 300 sano ka hor dadkii yimid labada bay ahaayeen waxay dad xorriyad doonaya iyo dad dinamikiina xadaaradda bay dhiseen Soomaaliga uu la jaan qaaday qofkii Soomaaliga markuu Mareykanka yimid maxaa la filayay Khalid saddex mid baa laga filayay inuu nolosha ka dhaco inuu ku dhex milmo inuu guulaysto haddaad imika eegtid Soomaalida eegtid masaajid baan leenahay dugsiyaan leenahay iskuulaan leenahay bay'a mushtar baan leenahay isbitaalaan leenahay dhakhtaraan leenahay farmasiyaan leenahay idaacadaan leenahay noloshii oo dhan baan ku jirnaa wadaadaan leenahay wax inaga maqan uu yar yahayba Soomaalida markaa saddexda haddaad u fogeysid dad nolosha ka dhacay way jiraan laakiin way yar yihiin markaad maraysid meelaha nolosha laga dhacay 4 qof 5 qof waad ka arkaysaa nolosha ka dhaceen meelaha bay jifaan derbiga jifaan derbi jif baa soo dad nolosha ka dhacay way jiraan laakiin way yar yihiin dad ku dhex milmay ilbaxnimada Mareykanka oo iswaayina way jiraan way yar yihiin iyo markaa jira Soomaaliya waxaa jira dad guuleystay oo noloshii galay iskuul ku guuleystay dhakhtar noqday injineer noqday bay'a mushtar noqday sheekh noqday maxaan ku dhahdaa waxba noqday isla markaasina diintiisa haysta dhaqankiisa haysta af Soomaaliga si fiican u hadlaya
amba af Soomaaliga si wallahi dadaaliya Soomaaliga ku hadlaya iyo maartay waa kan daladii maartay magaalada wada ku dhalan gaadhay marka way fiican yihiin dadaalayaan adigi kulligiin way fiican yihiin maxaa keenay markaas dhaqankii way la diisna way la seen taasi waxay markaa keentay diraasadii la sameeyay war Soomaalidu kuma milmayso qoladan midkiisa maartay fog ee isagu ka mid yahay waxay noo arkaan dad nolosha siyaada ku ah waxay noo arkaan dad nolosha siyaada ku ah oo isla markaasina halis ku ah waxay ku leeyihiin civilization keena iyo halis ku yihiin laana ma qaadanayaan naftooda nooga baqayaan kuwa buu aaba ka yahay kuwaas buu aaba ka yahay oo waxaa la dhahdaa midita fog aragtida waa maxay waliba mid baa jirta oo leeyahay oo aan soo sheegin waa shacbawi waa popularism dadka yani dadka kiciyo xamaasista weeyaan oo marka taasina uu leeyahay marka anaga waxay noo arkaa dadkii dadka lagu kicinayay oo kuwa kule waxaan ka naxay maartay Khaalidow kelmado isticmaalay waa qashin dadku waa qashin qof badan oo jaadana oo ma Soomaali oo dhan 30 milyan oo qof amba 40 milyan oo Geeska Afrika fadhida inaad tirado waa qashin حتى حقوق بنادك وأظن إنك تعبر كسبودي وي لو بس شيء جزاك الله خير واي سوالي ني horta dadka Soomaaliyeed maahan is weydiinayaan su'aashan oo anaga naga rabaa runtii anigana marka la fiiriyo ninkan siyaasadiisa qolada hadda uu sheekh sheegay oo right wingiga oo garanaya naga khilaaf weyn ka dhaxeeyo laftigooda dhexdooda khilaaf weyn oo zaid ka dhaxeeyo صح qolada hadda oo la dhahayo maxaa la dhahay Israeli first oo taageersan dawladda Israel iyo qolada Mareykanka ama taageersan wax kasta danta laga shaqeynay inay noqoto Mareykanka صح Mareykanka first labadaas iskhilaafay labadaas markay iskhilaafeen waxa loo baahnaa wax oo labadan group maadaama base-kaad markuu yahay waxa loo baahan yahay inaad dadkan mideeyo waxa lagu mideynaya waxay noqotay islaam naceebka horta ka bilaabtay dagaalka muddo soo socday sanadkan laga bilaabo January markuu ninkan gacanta u qabsaday dagaalkan bilaabatay markaas horta islaamka waxa la dhahay aan ku mideynayna islaam naceebka si loo wado islaam naceebka de waxa la helay qolo oo Soomaali ah oo maxaa la dhahay madowna ah Soomaalina ah refugee ah immigrant ah dad oo saas ah marka la helay oo haddana sina loo fiiriyo dibna gaaray de waxa la de fursad la helay in dadkaas lagu mideeyo soo waxa loo socdo ma oo Soomaalida waxa loo socdo waxa waa in la mideeyo base-kaas marka dantooda naga dhaxarkeen wali siyaasadda Mareykanka waxa jirto kelmad la dhahayo dog whistle waxa waayo eega ma aqaanta marka qofka markuu qayli uu maqlaaya ama meel fog ka maqlaaya waxa la dog whistle meaning that at the end of the day hada fariin rabtina gaarsiisid wana qofku ka casiisid sa fariintaada aw heshid dadku raadinaya dadku inuu ku kaciyo waa dadkaas oo hadda base-kaas oo kala go'an dadkaas la rabo in la mideeyo Soomaali waxa weeye waa or ku kacsi Soomaaliga baa loo soo baray Shaad Ahmed Bashir minaga ugu horeeyay horta wax saas kala loo weeraro oo or lagu kacsado jaarida soo wadanka jaarida baa soo baray minaga ugu horeeyay miswala ka soo horeeyay horta warun jazakallahu khayr wa su'aal fiican Mareykanka amba ilbaxnimada Mareykanka waxa ka horeysay ilbaxnimada reer Yurub European civilization صح ilbaxnimada Mareykanka iyo ilbaxnimada reer Yurub marka la isku geeyo waxa loo yaqaanaa ilbaxnimada reer galbeedka Western civilization ilbaxnimada reer galbeedka waxa sameeyay ragii oo kamid ahaa Hegel waxay rumaysan yihiin afar qoloba inay dad ahayd Hegel uu qoray buugis uu qortay wuxuu rumaysan yahay dadka la dhahdo Hindida ee asalka wadanka u lahaa wuxuu dhawaad caajisa jir ahaan dad buka si bini aadan looga dhigana ninka cad waa inuu ilbixiyo
adiga nolol maleebo adiga arkay meesha maanta fadhiyaan laakiin ma ahe isaasaan raba in laga dhigo ayaga marka sababkaas waa aamin ay aaminsan yihiin waxaa loo yaqaanaa annaka asalkii ah saantarkii ilbaxnimadu waa annaka ninka madow u yimaadeen ninka madow waa jir weyn maskax faaruqa jir weyn oo xoog badan maskax faaruqa geesi weeyaan laakiin geeridu jecel nolosha ma jeclo maxaa yeelay geeridu nolosha waxba ma sheegayso marka inuu iska dhinto markaa buu leeyahay waan dagaalamay calan baan u dagaalamay waan fahmaynaa buu qodol badan qolada buu qola saddexaad oo yimaadeen waayo waa hindidii andiyaanki iyo shiinaha waxay dhahdeen dadkaasi waa dad ku wanaagsan laba shay andiyaanku wuxuu ku wanaagsan yahay inuu maaragtay idoon doono wuxuu ku ruuxda oo isdoon doono ismana helo shiinuhuna wuxuu ihi weligii allihii bini aadam ma noqonay waa hegel waa hegel waxsaale dadkii oo dhan wuxuu ka dhigay wax bini aadan ahayn wax bini aadan ahayn marka arrintan qashinka ah waa wax uu beekala ka keenay ninkan markuu u yimiday maxaan ku dhahdaa turkiyadana wuxuu ku sheegay geesiyo laakiin baadiyo ku nool maxaas oo dhan maxaa looga jeedaa ilbaxnimada waxa u ah saantar u ah oo ma u ah markis u ah ninka cad okay ilbaxnimadii ninka cad way soo socotay hagee imatay maraykan bay imatay markay maraykan imatay maraykanna ilbaxnimadii cad ayaa qaatay xisbiga jumhuuriga qaatay xisbiga jumhuuriga sii qaatay midigtaa sii qaatay midigtiina maanta ayaa matalaya ninka mega oo Trump aba ka yahay okay marka su'aashu waxa weeyaan dadkii wadankan imanayay fikradda lagu dhaqmayay saas ahayd yahuuda kamid ah yahuuda meesha waa lagu cadaabay marka yahuuda imika maskax marka su'aal baa la isweydiiyaa ba yahuuda maskaxda ka qabsatay maraykanka mise maraykanka yahuuda maskaxda ka haysta oo u sidix maray dad kale waa la baaraa waxa u kala baxeen aqooyahanku laba qaar waxay leeyihiin maraykanka yahuuda samaystay qaarna waxay leeyihiin ma jirto xaasiye xalay waxa soo baxday dood ba xalay soo baxday oranaysa 70 shirkadood oo yahuudu leedahay iyaa gacanta ku haysa dhaqaalaha maraykanka oo ugu horeeyo samaynta hubka iyo beetaagoonka 70 ka shirkadood marka yaa la hayaa yaa haysta marka waa su'aal adag oo maartay laakiin iyaga asalkoogii waa la soo guumeystay way ka soo baxeen maalin dhaweyta waxaan kula kulanay nin yahuudiya wuxuu nagu yidhi ma rabtaa inaad badbaadaan wuxuu yidhi ciyaalkiina badbaadiya mustaqbalka maxaan ka badbaadinaa baan ka yidhi waxaa ka badbaadisiin inay milmaan iskuulna ha dhigtaan dhaqankoogana haystaan inakuna lacag ka shaqeeya lacagta iyaga dhaxashiya iyagoo iskuulna bartay dhaqankoogina haystaa lacagna dhaxlay waxbay noqonayaan dadkii qof aan soo marin ma jirto qof walbana laba shay buu ku badbaaday kuwa badbaaday waxay ku badbaadeen inay waxoogii xajistaan kumitidaan iyo inay shaqaystaan ay cabsoon annaga maanta midadkeenni ayaa loo baahaya maanta imtixaanku maanta waa imtixaan adag oo imtixaanku wuxuu adkaan doonaa ilaa iyo 2016 waa doorashada markay dhacayso simiga nuska marka intay dhacayso weeyaan ama saambus baa noqonaynaa la cunayaa ama isagu intaabuu dadaal bixinayaa xataa istaraatiijiyadii uu dejin lahaa 2016 uu soo horreysiyey ما أمكن دجيه استراتيجية national security إلا دجيه لابد كل حاجة وحقق عبصودي إن الديمقراط كبارهم كبطان وكسي جالسين مك ما حكست بوك جالسين يا أنت أين رجاسي أين الإيمان مركزات أمر الله جزاك الله خير خالد dadkii soo maray mana ugu horeeyay sheekhana si fiican u taabtay horta qolada Irishka dhib badan ay ka soo mareen markay imaadeen wadankan wali Irish waxa la suubin jiray
newspaperka kaartuumo xumaan laga qori jiray qolada Irishka qolada Italiyaanka waxa loo caan waxay u yihiin mafia ama dad tuugo loo garanayay saasa ayagana duruuftaasay soo mareen duruuf kale waxaa soo maray hadda dhow qolada maxaa lahaye oo Hmong community oo degan maxaa lahaye state Minnesota waqti adag ay soo mareen jaaliyad kasto ama any community ama any immigrant community Mareykanka soo maray dhibkan oo Soomaalida marayaan ee soo mareen tan kale dhibkan waxa ka horeeyay dadka madowga African Americans ka degnaay maxaa lahaye wadankan waxay soo mareen slavery soo mareen waqti waxay soo mareen oo dadka ninka cadaanka meel dhaay aad mid kale wili xataa waqtiga Jim Crow waxa waaye ninkii oo cadaanka oo gaajada oo waxba haysanin oo eberkiisa waxa laga dhacsiiyay inuu ninka madowga ka fiican yahay oo wax haysto oo wax bartay so wadankan wuxuu ku dhisnaa intaas sano iyo intaas duruufo badan oo soo maray oo maxaa la dhahay qofkii cusub inuu maxaa la dhahay uu naco hadda saal ahaan waagi waxa jiray nin oo maxaa la gamanatooro oo 80s-ka 1980s-ka amal waa waqtigaas wuxuu meel mariyay wax la dhahayo maxaa la Minnesota miracle wax ajiib oo laga yaabo waa sharciga ugu banaay ugu maxaa lahaye oo investment ugu weyneed oo Mareykanka ama state Minnesota uu helay from the state of Minnesota ama government Minnesota ka helay wax kasto iskuulaadka caafimaadka wax kasto loo meel mariyay markaas waxa dhacay markuu arintaas investmentiga state heleen dadkii madowga oo African American ka degnaay Chicago ama Illinois way soo guureen waxay imaadeen waxay u soo guureen Minnesota maadaama fursadaha u banaay markuu soo guuray dadkii canshuurtii bixinayay oo state-ku lagu kabaya u banaay cadaanka waxa laga dhacsiiyay dad kala imaanayee yaa canshuurtaada qaadanayaan waxa ku dhac markaas canshuurtii waxay joojiyeen inay maxaa la dhahay Egilian state Minnesota markaas ayagana dadkii maxaa ku dhacay inay ayagana noloshooda iyo horumarkooda inay ku baabacaan taas waa dadkii waxa so wili xataa swimming poolka meesha oo swimming poolka waxa jira dadkii madowga iyo cadaanka markii xaafad soo degi jireen dadkii cadaanka way baxeenoo waxay suubiyeen biyihii meeshii ka saar swimming poolkii biyo ka joojiyeen markii waxa la arkay Mareykankiinan swimming poolkii wixii ficnaayo dad ciyaalka oo ever oo biyanan jirin maxaa dhacay waxa taas keentay the racism iyo maxaa la dhahay ku jiro wadankan fabric lagu dhisay nacaybka ku jiro waxay keentay inay dad badan noloshooda ku luus karayaan hadii aynu taram aragnay dadka wadankan soo galootiga ku cusubna dhibaatada maraan qolo walbaba waxa loo adeegsanayay shacabka Soomaalida fraud musuqmaasuq baa loo isticmaalay maxay tahay sababta sheekada waa ka dambeeya in fraud muxuu ka rabaa waxay fikirka weyn ka dambeeya inuu fraud loo isticmaalo waxa ka dambeeya isaga qolo la yiraahdo Soomaha ragii doortay ballanqaad uu sameeyay ballanqaadada uu sameeyay waxa ahayd inuu shaqo abuurayo mu abuuray shaqadii okay wuxuu u sheegay in lacagtu ay meeshan oo cashuur adduunka intuu saaro lacag badan waddanka soo galayso ma soo gashay lacagtii badnayd ama weeyaan mid saddexaad buu ballan qaaday wuxuu ballan qaaday inuu soo celin doono warshadihii صح بريجي هو رجلي عقل يسوع إن ورشيل صورة في موج ولا قال وقت التكنولوجيا سوى إندستريز بجوا ما كان ورشيله بانسو علي الدولة وهكذا ورشيل بنغلاديش لقي يا كيني دونا بولي أوكي صدق هالشيء هو بلغ هذا ودنيكي عضايا كنت تجير كاي اللي تجير كاي شقيسين جري بس كيف فرق مالها وهو آمن إن الشقة ويمان يسوع ويمان ويدي وكل يوم كان شقة يا كاقاتي صومالي كاقاتي wiilka madow hadda soo galay soo Soomaaliya ka qaatay fraud buu ku qaatay lacagta aad doonaysid ninka la xada waa garsamaha taasi horta waa mid kooda mid labaad ee ajiibka waxyaan 300 bilyan ilaa 300 bilyan iyo lacag la leeyahay oo la xaday xilli corona Soomaalida waxa lagu haystaa waa 200 milyan ama bilyan bagaarsiiba dadka اسكو اقدر لعطيت لك تاعي نبيع معها بصدق حد بجرسها الصومالي ده انت خلدنتي انت خلدمي كبدن
انت قلدين وضع انت خلط انا خلط مديدين way jirtaa laakiin yaa badan mid afraad baa jirtaa maxaa loo sameeyay maxkamadaha inay wax daba galaan maxaa loo sameeyay booliiska iyo shaqada inay cadaalad daba gasho qof kasta cadaalad daba gasho oo lagu qabsado anagu ma salaamayna حتى ما رأيت حبسيسة لكن وين حكمة كادشوا سيستم عدالي ما هي السياسة اللي قالوا ضد الوقع صدق معها وقع سيء هذا شيء متى كلام قدام بس نيك الصومالي موحو جيا يا إلا عايو وعيد أي جاد ولا إلا دولة ملأ صومالي جاد مدحوين ملأ ما هو بينه هذا الشيخ مدحوينه بوليس ماله بوليس كي بيجري عيدان ماله عيدان كي بيجران oo adiga ciidankaaga iyo ciidankooga la dagaalama shabaab xageedu ka dagaalanta marka shabaab dagaalamay Soomaaliya ku dagaalantii ya ciidan raacda ciidanka Soomaaliya ku qaada safaarad buu ku leeyahay safaarad beel maya Soomaaliya waxay ku jirtaa maanta majliska amniga UN labada sano UN ka majliska amniga security Mareykanka ku jiro iyo Soomaaliya maanta madax bay ka tahay isku miis bay fadhiyaan madax bay ka tahay masalakan oo Mareykanka waxa ku xukumo meeshaas ni Soomaaliya ninka safiirka Soomaaliya xukuma ninkaasi madaxa ayuu ku leeyahay ma jiro dadkii waxa isweydiinaysaa waxa dhaajistaa sakhraanku waa afar nooc qofka sakhraanka mid khamri buu cabay ya midna shahwada ka xoog badan midna kursiga wareeriya midna magac doonka isagoo magac madaxweynuhu ku noqday magacaanu sii doonay maxay tahay suudka wacay kursiga wareeriya kursiga inuu boqortiyo masaakiinta Soomaalida iyo boqortiyo ku soo jazakallahu khair barnaamijka maadaama qaybtiisa ugu muhiimsan hadda aan marayno aan sheekada qaybsanayno immigration waa la soo weeraray ciidan baa waddanka ugu soo sii daayay dadkiina waxay u badan yihiin dasitiisa maxay iyadana sababta niyo taas waxa dadku xal raaw in la cabsi geliyo Soomaalidu waxa la arkay inay awood leeyihiin wadankan iyo maxaa la dhahay inay saameyn ku lahayd ta'thir ku lahayd dadka Soomaalida oo waxa waa dhakhtar injineer dad wax bartay dhalinyaro waa dad maxaa la dhahay meel u socdo awoodna leh waa mid laga cabsoonayo midaas waxa ninkan maanta dagaalkan uu qaadayo waxa waayo sanadkan soo socdo 2026 dagaal culus lagu soo qaadi doona jaaliyada Soomaaliyeed oo degan state Minnesota waxa taasna la rabaa Soomaalida waxa la rabaa awoodeed in la yareeyo oo laga dhigo dad maxal lahay waxba qabsan karin waxa loo socdo hadafkaas waayo so waxa waaye aniga maadaama dad muslimiin aan nahay waxaan iyo dad Soomaali aan nahay waxaan u baahanahay inaan kacno inaas abaabulno ana waxaan ugu waxaan abaabul ya oo banaabax amal ah waa ina dad kale soo baxaan is abaabulaan inay maxaa la dhahay because wadankan awood waxa lagu helaa laba shay dad abaabulan iyo dad maxaa la dhahay hantidooda ama resource-kooda isku keensaday hadana mid saddexaad oo shaqada waxaan ugu daray waa inay hadaf lahaadaan vision they have to be able to inay meel wax ama agenda ama wax ay wataan so Soomaalida waxaan u baahanahay in hurdada ka kacno inaas abaabulno oo waxaan aan awood sidee arka kale dhacday soo ugu hortay kartaa isku maayni kartaa horta anaka dhamaanteen waxa naga maqan strategical sax si aan uga hortagnaa ninka la yiraahdo Trump iyo siyaasadiisa kama dhigna si aan uga hortagnaa dawladda Mareykanka sax oo ay kala saaraan dawladda Mareykanka kamid baan nahay anaga wax babay ha qofka Soomaaliga dawladda Mareykanka kamid yahay baarlamaanka ugu sareeya Congress-ka ku jirnaa qof Soomaaliya kamid ah ilham ba kamid ah soo ah dawladani Minnesota meel ka saaka jirnaa marka qofka Soomaaligi dawladda uu kamid yahay marka anagu dawladda kama hortagin anaga dawladdiya maxaad ka hortagaysaa ma garanaysaa waa qof waliba ku isticmaalaya dawladdii Soomaa isticmaal ku jirto maxaa ku jira marka maxaa isticmaalaysaa su'aasha koobaad wax weeyaan isaga iyo dawladda kala saar الفرق بين الدولة iyo waxa la yaqaan istiraatiijiyada af Carabiga istiraatiijiyadu fasl baa waa ina kala saartid ad-dawla iyo ninkan inuu isagu dawladda ka xigsan oo dadka qaar waxa ka maqlaysaa alla dawladda Mareykanka Soomaaliya soo jeesatay ma aha dawladda Mareykanka Soomaaliya soo jeesan waxa ku soo jeestay waa systemkii dawladda aan ku soo laaqnaa ما هو سيستم ني سيستم او فرصه هايستو 4 سنه 6 سنه هايستو oo sidii qaal sheegay rabay rutiga ku kacsado wala lamba baan marka istiraatiijiyada taa ka saarno
arrin labaad baa muhiim ah waxa weeyaan xaqaaga haddaad dooni weydid qofna kuma siinayo صح istiraatiijiyad la yidhaahdo xaq doon suu sheegay khaalid dadkeenu iminka waxaa la sheegayaa suuqa baan leenahay soo maha way faaruqayaan okay kun qof 500 oo qof oo maxaa dhahdaa derbi ka soo booda way dhici kartaa inuu cabsoodo guriga iska fadhiyo laakiin dadkii waraqadaha lahay wadanka u dhashay maxay ka cabsoonayaan suuqooga ha tagaan cuntadooda ha cunaan maqaaxyooga ha tagaan wuxuu ka shakisan yahay maraykanimadiisa qofkaas ma in lagaa leeyahay moodaysa dowladda lagama leh siduu isagu eg bahal baan ku sheegay xera muxuu ku noqday Trump Maraykan qaanuun adiguna maxaa ku noqotay Maraykan qaanuun kama xigo ya waxaa dhada jinsiyadda qaanuunka bixiya maaha jinsiyadda yaa bixiya qaanuunka bixiya xeerkaa ku siinaya jinsiyadda inaad tahay wadanka citizenka xeerkaa ku siinaya xeerku saw ku qaatay umaad ku qaadatay haddaad ku dhalatay waa ku dhalatay haddaad ku dhalina waad ku heshay arrinta labaad taas weeyaan inaanad u malina tahay marti waxaan markaan dhalinyaradan reer Daarul Faaruq markaan siinay dowladka waxaan dhadaa martida abadiga ka baxa waa marti abadiya Soomaalidu wasaas nabigu muxuu sallallahu marti wasta